halkani waa janaalka xogta maanta daawade waxaan idiin soo gudbinaynaa waayo arag Soomaaliyeed oo ka hadlaya dhibaatada ay leedahay marka aad ka tagto dalkaaga iyo waxa looga baahan yahay qof kasta in ay tahay wadaniyad iyo sidii uu dhisan lahaa dalkiisa. waayo araggan ayaa ka waramaya dhibaatada ay leedahay marka aad ka tagto dalkaaga hooyo aadna tagto wadan aadan adigu lahayn. si aad ugu tixnaatid muuqaalada aan kuu soo gelinayna barteena YouTube-ka fadlan subscribe saar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضبير وكوبان مركا تارجل لليه هاي وحكستو الله قبنا وحلو قصة ليا قفك بين هذا كهورت إنه ليه هاي والدنيات كذبوا هلي كرا إنه أما جرح صدو أما واحد الصو أما واحد غاجيو أما مارين كلا جلو waxoogaa anigu jadwalka waxaan u bedelayaa hool ku dhawaanaya jadwalka wadaniyadda in badan ragga hadda meesha fadhiya waa dhalinyaro waxay u xaqal taagayaan in dalkoodii oo qayraad ku jiro ay dhaqaajiyaan ama bad ku dhintaan ama bari ku dhintaan jidkii habaar waalid anaa uga horeeya marka waxaan rabaa in tusaale yar siiyo hadduu wanaagsan yahayna ay qaadaan hadduu soo wanaagsanayna ay ka joogaan 92 yaan halka ka baxay waxaan tagay Kenya ugu horeysay maalintii ugu horeysay ayaa waxa la iga hor keenay nin janana oo Soomaaliya janana ha jiro waliba gobernatoor soo maray oo ka tiinaysan oo nin askari oo Kenyaanu dirba ku haysto af Soomaali kaliya ku hadlayo luqad kala ma aqoon nin kala weydiiyay ninkan maxaa lagu haystaa markaas la yiraahdo 200 oo shilin oo Kenya maniga bas laga rabaa waxay dhaana 200 haystee haddaan 100 siiyo 100 kale ana isku ilaalinaya ee maladaynaya haahu 100kii laga qaaday janankii walaalkii waa ninkii jananka ahay gobernatooraha noo ahay nin askari wuxuu ku beecinaya 2 shilin 200 oo Kenya maniga halkaas waa ka dhaqaaqo waxaan tagay Dubai ninkii airportka iga qaaday oo igeeyay guriga la seexdo nin uu la hadlay wuxuu yiri boos banaan ma haysid markaas uu yiri waxa banaan meel kora anigu marka meel kora ma fahmo guriga la igeeyay 4 sareerood oo ku yaxalana oo kaleeta oo 4 nin oo kor jiifto 4 nin hoos jiifto alaygi waxa la yiri wanikaan waa culus yaho korma fuuli kare hoosta la gelinayaa boqol iyo konton waa inuu dhiibaa meesha dadka kala boqolka dhiibaa waayaha la yiri dantaaba keentay boqolkayga dhiibtay iyo kontonkaygii subaxii waagu haduu bariya aniga bas soo toosay iyo gabdhi gurigu laba qol oo ka kooban yahay iyo jikada iyo hal qol waxa degan gabdho qolka kaleetana 8 qofood oo rag ahaan subaxii waagu markuu bariyaan aniga iyo gabdhihii soo toosay war wiilasha kale maxaa ku dhacay wiilasha kale 5 saac 6 saac ay soo kacaano habeenkii jawaana xirxiraan maalintiina waa jiifa habeenkii markii la gaaray oo subaxii waagu haduu bariyaan soo habeenkii la gaaray dadkii wada seexday gabar aan ugu soo hartay oo meesha fadhis markaas ay raadar ma saaxatay adigu markaas ay tiri maya anigu jiif ma lihiyo gabar bari shaqo tagaysa aan booskeeda saaxar raba subax mala jiif tamaas halkaas waa ka tagay Mareykanka mar alla markaan Mareykan tagay aalay dadka cusubo warshad hilibka qasha ay horta ka soo shaqeeyaan kadib ay magaalada ku soo noqdaan qodobo maalmood oo rotation la furay markaan rotation dhamaystay waxa la geeyay halkii warshadu ku tiil irideed qofkii iga hor yimid oo igu horeeyon arkay nin Soomaaliya abukaata ahay oo maxkamadda badbaadada lawyer ka ahaa jiray oo 2 midiyood iyo soofo wata oo meesha ay ugu jiraan ayaa iga hor yimid adaan adu maxaa qabanaysaa maxay tahay hilibka qalaya aniga markaan gudaha galay
la yiri adiga iyo laba Suudaan oo xoog aad leedihiin midiyaa la yiri dhibi ma meel ka sareysa la goyn ajalada hilibka sidda la yiri mara ay istaag noqotaa halka kartoon waxa ku jira 70 kiilo 400 oo kartoon 1 minute dejinaysa ajaladu markay toosana waa ku celinaysa sidaan maalintii oo istiil u lahaa anigoo maalintii qorrax markuu dhacay taasa u socdo sida uu istaagi karo arinta ka soo baxay bishu markay dhamaato waxa la yiri $1,300 aad shaqaysatay graduation dadku ugu horeeyo oo lacagta helaaba tahay 500 ilmahayga cunay 200 iyo 300 ana transport ka dhigtay 9 qofood oo mid maalin shahaadi siiyay iyo mid maalin meel iga bixiyay iyo mid maalin waxii taagay iyo mid qaraabana ay soo wacay waxay ka wada sinaayeen mar kasta ay hadalka dhameystaan aniga maanta kaliya ku soo waco wiliga dad ku soo waco war boqol ay hartay boqolkiiba deeqa waa ka soo laabtay xamaraan imaday waxaan joogaa 7 sano joogaa ma bixin wiilasha dhalinyarada mid walba wuxuu yiraahdaa adeer goormaad noqonayso Mareykanka ku noqonay anigana waxa igu taal inaan baadiyasi aado xagga u siiso waxa ku soo qatimaya dadku markuu horeyso waa inay horta wadaniyad yeeshaan aaminaan dalkooda ama fooraka ka shaqaystaan ama qaab kala u shaqaystaan horta waa in aad leedahay waxaad cunayso raadinaysa wax ka weyn waa birjibiyada adiga laftaada ka weyn waxa kale ka weyn dhulkaaga wallaahi ina nin dhulkiisa ka tago loo faa'iido keenay hal kalmada ku soo qatimaya nin adeerkaya waagi guulwado soo baxay guulwado loo qoray waxa la yiri qof kasta oo qaldamo ama xoolo ama dad waa ganaaxis maalintii daba u baxay beertiisa uu tagay beertii banaankeeda soo joogo wax arka rati ku jira beerta waa fiiriyay ratiga markuu beerta ugu tagay dhacay soo gal waxa keenay meeshii lagu ganaaxay ratiga asaa iska leh beertana asaa iska leh laakiin waxa la yiri wixii qaldamo la ganaax maalmahan waxaan maqlay nin Soomaali Kenyaana oo anigu Soomaaliya lahay badda Soomaaliya Kenya leh war almeena ma iska aamuso yiraahdo anigu Kenyaana ah waa adeerkay ratigiisii ganaaxo kale هذا هو ما تنتهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته